Madaxweynaha Iran Xasan Ruuxaani ayaa khadka telefoonka kula xiriiray dhigiisa Turkiga Rajab Tayyip Erdogan isagoona u sheegay Tehran inay xaq u leedahay inay ka jawaab celiso waqtiga ku habboon dilkii saynisyahaankii Muxsin Fakhrizadeh. Bayaan ay soo saartay madaxtooyada Iran waxa ay ku sheegtay in Ruuxaani uu Sahyuuniyadda ku eedeeyay dilkii saynisyahaankii caanka ahaa nukliyeerka fal-dambiyeed aad u xun oo fool xun iyo weliba fal bini'aadanimada ka baxsan. Waxa uu yiri shaki kuma jiro in dilka saynisyahanka reer Iran uu caddeyn u yahay awood la'aanta cadowga dhabta ah ee dadka reer Iran. Argudashada shuhaadadan weyn ee loo geystay kuwii ka dambeeyay dilkan xilligii loogu talagalay waa xaq dowladda Iran. Ruuxaani ayaa ugu mahadceliyay Erdogan isgarab istaagga Turkiga ee shacabka Iran iyo cambaareynta dilkii Fakhrizadeh isaga oo intaa ku daray inay si cad ugu caddahay Tehran cidda mas'uulka ka ahayd weerarkaas iyo sida dilka u dhacay. Ruuxaani waxa uu sheegay in Fakhrizadeh loo tixgeliyay inuu yahay shaqsi muhiim u ah barnaamijka nukliyeerka ee Tehran wuxuu bilihii ugu dambeeyay noloshiisa ku qaatay la dagaalanka fayraska corona isagoo dhammaystiray cilmi baarista, soo saarista iyo weliba aalado caafimaad iyo natiijooyin lagu ogaanayo cudurkaasi. Ruuxaani waxa uu sidoo kale taabtay heshiiskii nukliyeerka ee lagu soo afjaray Iran iyo kooxda la isku yiraahdo 5+1 ee 2015 waxa uuna si gaar ah ugu siiyay hadallada qofka loo maleynayo inuu ku guuleysto doorashada madaxtinimada Mareykanka ee Joe Biden ee la xiriiray rabitaankiisa inuu ku laabto heshiiskan uu ka baxay maamulka madaxweyne Donald Trump. Ruuxaani ayaa sheegay in Iran ay si isdaba joog ah u xaqiijisay in ay u hogaaminayso heshiiska nukliyeerka haddii dhinacyada kale ay sidoo kale u hoggaansamaan waajibaadka saaran isagoo rajo weyn ka muujiyay in maamulka cusub ee Mareykanka uu cashar weyn ka qaadan doono khaladaadka maamulka haatan jira.